waxaynu ku noolnahay duni khatarta meel walba ama luuq kasta ay kaa soo wajihi karto halkaasoo khadka u dhexeeya xadaaradda bini'aadamka iyo xayawaanada duurjoogta ah oo mugdi ku jiro waxaa jira muuqaalo argagax leh oo uusan qof kasta nasiib u yeelan inuu arko xayawaanadan ma aha oo keliya inay yihiin kuwo duurjoog ah oo aan carbiyasnayn laakiin haddana waa malakumood socda taasoo ka dhigaysa riyo maalmeed uusan qof kasta malaysan karin inuu la kulmayo waa kuwo weerar soo qaada markii ay dareemaan in la handaday amaba markii u arkaan qofka inuu yahay cunto lugaynaysa u diyaar garow inaad aragto xayawaanada sida libaaxa maroodiga shabeelka iyo teegarada oo wareegaya laamiyada dhexdooda isla markaana weeraraya dadka iyo xayawaanadooda waxaynu ku bilaabaynaa waraabe ama dhurwaa ayaa wuxuu soo galay tuulo ku taala waddanka Hindiya isla markiina wuxuu weeraray nin uu waddada ku arkay muuqaalka xiga waxaad ku daawan doontaa waraabo soo gaaday kadibna soo weeraray nin oday ah oo waddada laamiga socday taygarkani wuxuu isku dayayaa inuu kala soo dego ninkani maroodiga dushiisa oo weliba wuu soo laalaabanayaa sida taygar ama muqshabeel ayaa wuxuu isku dayayaa inuu ku dulboodo gaariga jiibka ah ee sida dalxiisayaasha laakiin si dirqi ah ayay kaga badbaadayaan koox libaaxyo ah ayaa waxay soo galeen tuulo ku taala waddanka Hindiya kadibna waxay galeen oo u daateen guri ka mid ah guryaha ku yaala tuulada lama oga halkaasi waxay kala baxeen libaaxyada ugaarsadayaashan waxay daba joogeen libaax kadib saacado badan waxay arkeen raadkiisa kadib waxay ku rideen xabadii u horreysay waxayna kaga dhufteen xagga feeraha fiiri awoodda libaaxa inta xabad lagu dhufanayo iyo sida uu u soo orday sidaad u jeedidba 3 libaax ayaa waxay ka soo muuqdeen kaynta dhexdeeda waxay arkeen niman ugaarsata ah kadibna mid ka mid ah libaaxyada ayaa wuxuu bilaabay inuu weeraro nimankii way ordeen wayna dadkani waxay magaalada dhexdeeda ku wareejinayaan meydka taygar dad cuna oo baadiyaha magaalada ku cunay dad tiro badan waxay sidani u sameynayaan si ciilkii iyo caradii haysay ay uga degto
isla markaana ay ugu laabqabowsadaan. kadib cabasho ka timid dadka deegaanka, ilaalada xayawaanada duurjoogta ah ayaa waxay isku dayayaan inay ka soo saaraan taygar isku qariyay beeraha bariiska dhexdooda. taygarkan oo u bartay inuu cuno dadka bini'aadamka hilibkooda ayaa wuxuu ka soo boodayaa meel gaaban, wuxuuna isku dayayaa inuu kala dego mid ka mid ah ilaalada xayawaanada duurjoogta ah maroodiga dushiisa. sidaad u jeedaanba, ninkani waxaa ka soo gaaraya gacanta dhaawac aad iyo aad u culus, laakiin wuu ka badbaadayaa weerarka taygarka. tani waxay daliil cad u tahay in taygarku ka awood badan yahay, kana bootin dheer yahay, kana fudud yahay, kana khatar badan yahay libaaxa. social media influencer ama nin saameyn ku leh social media gaar ahaan TikTok ayaa wuxuu soo booqday beerta lagu xanaaneeyo xayawaanada duurjoogta ah gaar ahaan qaybta libaaxyada. kadibna wuxuu bilaabay inuu ku ciyaaro mid ka mid ah libaaxyadii meeshaas ku jiray. wuxuu bilaabay inuu farihiisa gilgiliyo siliga ku xiran libaaxyada. si lama filaan ah ayuu libaaxa fartiisa u qaniinay, kadibna wuxuu diiday inuu ka foqo ilaa ugu dambeyn uu ka goostay farta. dadka ku xiran akoonnadiisa social media ayaa waxay tilmaamayaan ninkani inuu helay abaalkiisa, halka qaarna ay u cudur daarayaan. ninkani waxaa lagu magacaabaa Hashmut Cali, wuxuuna ka soo jeedaa waddanka Bangladesh. wuxuu ka kalluumaysan jiray webi ku yaala keynta lagu magacaabo Sundarban ee u dhexeeya wadamada India iyo Bangladesh, waana mid ka mid ah keymaha ugu khatarta badan caalamka. keyntani waxaa lagu waayaa 10 qof sanadkiiba, badanaana halkaasi kalluumaysatada waxaa soo weerara taygarada quuta hilibka dadka. habeenada ka mid ah, isaga iyo asxaabtiisa ayaa waxay u soo baxeen kalluumaysi, waxayna isticmaalayeen doon ka samaysan alwaax. taygar dad cuna ayaa wuxuu ka soo booday webiga jiinkiisa, halkaasi ayuuna ka dafay Hashmut Cali. wejiga oo dhan ayuu ka cunay, laakiin ajashiisa ayaa wax ka dhimanayd.